asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka oo aan ku eegi doono Israa'iil oo ka baxday xabad joojintii ay la gashay ururka Xamaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi waxay la falanqeynaysaa saaxiibkay Siciid Cabdiqaadir Abuukar Siciid kusoo dhawow barnaamijka falanqeynta wararka maxaa ugu dambeeyay Netanyahu wuxuu sheegay inuu ka fiirsanayo heshiiskii uu la galay Xamaas maxaa cusub waad mahadsan tahay Toronto waxaan ku dhowahay barnaamijkan lagu falanqeynayo dhacdooyinka caalamka ka dhacaya waa arrin runtii soo korodhay Netanyahu inuu heshiiska isaga baxo taana waxaa loo sababeynayaa in Trump uu yiri waxa doontaan sameeya waa idinku taageersanahay midaas ayaa markaa keenaysa in Netanyahu xabad joojinta uu isaga baxo iminka dagaal diyaar u noqdo maxaa ku riixay xilligan oo ku soo beegay inay ay la yimaadaan ay yiraahdaan waan ka baxaynaa heshiiskii oo wada hadal waxba maaragtay kuma dhamaynayno maxaa Israa'iil waxa xilligan ku celinaya dagaalka maxay tahay dhowr arrimood marka aan eegayna waxaan ogsoonahay in Israa'iil rajo weyn ay ka qabto bariga dhexe waxaan ogsoonahay runtii Toronto markaan fiirino bariga dhexe in qariirad weyn oo Israa'iil ay doonayso inay marka hirgeliso oo Mareykankana ay sheegeen bariga dhexe gacanta ay marka u gelinayaan midaas keenayso waa taariikhi oo hore soo jiraan oo ahaa dagaalka runtii xilligan ma bilaaban Israa'iilna waxay inta badan doonaysay laga bilaabo Furaad iyo Niil in runtii ay maamusho marka midaas ay doonaysaa kaliya kuma ekaanayso Falastiin Israa'iil 15 bilood ay la dagaalamaysa Xamaas kamana adkaan hadda haddii dib ugu laabato maxay la kulmi kartaa waxaan isdhihi karnaa waa halka ay ku burburi lahayd waxaan ogsoonahay in Xamaas oo 15 bilood lala dagaalamayay welina runtii natiijo lagama gaarin Israa'iil kama gaarin Xamaas ma burburin weli waa jirtaa marka weliba sidii hore ahayd mid ka darnayd awood ka daran la soo baxay marka waxaan aaminsanahay Israa'iil in dagaalka labaad oo magaca Israa'iil la weyn doono oo ay burburi doonto marka sidee waa tahay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii falanqeynta wararka oo ku eegeynay hadalkii kasoo yeeray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ahaa inuu heshiiskii uu dib u maaragtay uga guranayo doonayana inuu markale dagaal uu ku qaado marinka Gaza waxay la falanqeynayay Siciid Cabdiqaadir Abuukar intaan ku kulmayno mid kan lamid ah waxaan kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.